Assalaamu calaykum saaxiibayaal, ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa qisadii dhex martay Nebi Ibraahim iyo Namruud, boqorkii kibirka badnaa ee sheegtay ilaahnimo. Namruud Ilaahay waxa uu siiyey wax walba oo adduunka yaalay, sidoo kale waxa uu siiyey ciidan aad u fara badan, ciidankaas oo aad u kibir badan. Kadib Namruud markii uu arkay in uu haysto wax walba oo adduunka yaala, uu haysto ciidan aad u fara badan, waxa uu sheegtay ilaahnimo. Kadibna Ilaahay waxa uu soo diray malagaas oo ugu yeedhaya in uu Ilaahay oo kaliya caabudo. Kadib Namruud waxa uu malagii ku yiraahday waxaad caabudaa Allah oo kaliya. Waa uu ka diiday, mar labaad ayaa uu ku dhahay, sidoo kale waa uu ka diiday, mar saddexaadna waa uu ku dhahay waa uu ka diiday. Kadibna malagii waa iskaga tagay, waxa uu ku yiri waxaad keensataa ciidankaaga, annagana waxaan soo kaxaysanaynaa ciidankeeda. Namruud in badan ayaa uu Nebi Ibraahim u tagay oo uu u sheegay in uu qaato diinta Islaamka. Waa uu ka diiday oo waxa uu sheegtay in uu yahay Ilaahay. Kadib Nebi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ku dhahay haddii aad Ilaahay tahay, Ilaahay waa kan wax nooleeya waxna dila. Kadibna intuu laba ciidankiisa ka mid keenay ayaa uu mid dilay, midka kalena waa uu iska daayay. Kadibna waxa uu Nebi Ibraahim calayhi salaam ku yiri waad aragtaa, midna waan dilay, midna nolol ayaan ku sii daayay, taasoo ahayd daliil khaldan uu ka aaminay hadalkii uu ku yiri Nebi Ibraahim calayhi salaam. Kadibna Nebi Ibraahim calayhi salaam waxa uu mar labaad ku dhahay Ilaahay waa kan cadceedda ka soo saara bariga, haddii aad Ilaahay tahay ka soo saar cadceedda galbeed. Kadibna Namruud inta uu aamusay uu afka buuray. Namruud waxa uu soo kaxaystay ciidankiisii oo dhan, waxa uu keenay meel bannaan ah. Kadibna cirka ayaa uu eegay, waxa uu dhahay aaway Ilaahay abuuray Nebi Ibraahim calayhi salaam, kaalay oo ila dagaalan ayaa uu ku dhahay Alle subxaanahu wa tacaala. Kadib waxa uu ku itixaamay noolaha ugu yar oo ahayd kaneeco. Kadibna Namruud ciidankiisii oo dhan waxaa dishay kaneeco. Namruudna waxaa sanka ka galay kaneeco, kadibna waxay u gudubtay maskaxda. Kadibna Namruud waxa uu garan waayay wax uu sameeyo, waxa uu madaxiisa la dhacay ashyaada u dhow. Kadibna Namruud dhowr cisho markii ay ku jirtay kaneecada, halkaas ayuu ku dhintay. Haddaba qisada Namruud waxaan ka qaadanaynaa in Alle subxaanahu wa tacaala aan la caasiyin, wixii uu ku siiyana lagu caasiyin, ha yaraado ama ha weynaado, isla markaasina loogu mahadceliyo. Halkaas ayuu maanta muuqaalkeenu ku egyahay. Haddii aad muuqaalka ka heshay like saar, sidoo kale nagu dhiirigeli subscribe. Mahadsanid.